talyaanigan ka duulay way Madrid baan duulay Spain hay Spainna waan ka duulay anigoo dalxiis ahaan uga baxay waxaan u duulay Guatemala waa waddanka Latin America Latin America Guatemala kaliya markaa ma soo goosan ilaa Honduras ilaa Salvador ilaa Nicaragua inaan macnaha dalxiis ahaan wadamada Latin America oo dhan marayo ayaan soo goostay way ka bacdina halka Honduras ilaa Nicaragua ayaa anigoo Honduras jooga ayuu nin soo sheegay nin Bino la yiraahdo oo Mexican oo magafa markaa miya oo sidii magafa uu shaqaysta oo dadku kaxeeya ninkii baan u tagnay sharcigii halkaas saadee uu yiriyeen lagu tixraacin ka bacdi isagoo xaggan Mexico ilaa Guatemala ay ku soo gaarsiineen afartii wadan baad jeexdeen xadkii Mareykanka tagteen sal idin qabtay markasta oo gasho Mexico ma dhex socon kartid oo gaangiska ku badan marka ugu horeynta markaad Mexico gasho waxaan qaad ka gelaysaa meel la yiraahdo Tabachulo waxa iskaga dhiibaysaa askarta loo tagaa askartu waxay ku xidhaysaa laba usbuuc labada toddobaad waa inta interviewgaaga iyo halkaad u socoto lagu kala cadaynayo inaad Mexico joogayso Mexicana dee hargeysa ka daran tahay way shaqeeyo wax toona ma lahayigi baaba istur saaran marka xageed u socotaan iyagu way ogyihiin meesha loo socdo Mareykan baan soconaa ka bacdi ninkan ku waraysanaya waa inta badan nin isticmaala saaxib fiicanta saaxib buu inta badan Soomaaligiiba inta ka bartay marka ninkaas ayaa Soomaalida qaabilsanaa oo de interviewgii wax walba la yeelan jiray laba usbuuc ka bacdina waa lagu sii deynayaa Soomaalida waxa la siiyaa 15 cisho waraaqad ah ka bacdina saasaan uga xadkii Mareykan baa baagsateen waxaan u tagnay diyaarad baad ka raacaysaa Tabachulo waraaqadii baad ku raacaysaa laftirkeedii Mexico City baan ka duulay Matamoros waa meesha gaangisku ku badan yihiin xataa meesha kaarayaal baa marayo taxi lama aaminayo askarta markaa Mexicaanka halka joogta baa la siiyaa xoogaa yaro lacagtii pesoski iyo Mexicaanki iyo waxaan isku darnay lacag yaro noo soo harhadhay Nigeria xuduudku halkan ilaa iyo aduu 2 kilomitir meelaas ay tagayso ay jiraa hadayna ka yaraynba marka iyagu intaas halkaas ku gaarsiinayaan markii ay isku daydeen in xadka Mareykan iyo Mexico u dhaxeeya ka gudubtaan oo Mareykan gashaan markiiba la idin qabtay miya markiiba waa la qabtay because already shanay tamankan cisho waxay kuugu qabteenba meel kasto aad Mareykan ka gasho marka hore waad sheeganaysaa aad ka galayso waa diyaar baraskiska marka koobaad ba Soomaalida waraaqadaha in laga qaaday dhinac waa in la baaraya Koreos baa in baaraya ka bacdi detention center ku gudbinaya halka ugu horeysay marka la idin ku xidhay meel la yiraahdo Porta Isabel detention center oo gobolka ka tirsan markaa Texas baa marka hore la idin ku xidhay muddo intee lag baa ku jirteen Texas waxaan ku jiray ilaa intii interviewgan maray 4 bilood marka interviewgii ugu horeeyay ama waraysigii ugu horeeyay markii laga qaaday Texas baa laga qaaday deedna lagu soo diiday miya maxkamadda lagu balaminaya deedna lawyer-kii aniga wax uu igu waayay oo dacwadeydu sax bay noqotay wuxuu ninkan uu qalmaa in la siiyo sharciga judge-kii meesha fadhiyo lawyer-kii ninkan waxaan ku hayaa kuma hayo wax cad laakiin waxaan ku hayaa passport-kiisa lambarkiisa inuu ka soo duubo isagoo tixraacay magacaygii body baskay aniguna ku diiday waxaan ku yiri magaca cid kasta booda way wadaagi kartaa aniga wax cadayna ma adiga haysaa oo passport-kayga iyo cado adiga sawirtay anigana wax ay ka sawiraan ma jiro dadda muddo intee lag baad ku xidhnayd markaa state-ka Texas waxaan ku xidhnaa ilaa 5 bilood dadna saadii sheegtay xabsi kala leedin wareejiyay New York habeen baan lagu soo dhaxtay leeyay soo kaca
maxaa laydiin qaadayay markaa adhownstan wallahi ma fahmin waxay noo qaadiyeen ilaa anaanka dhowr xabsi oo kala duwan baa soo marteen kama dambeyntii go-aankii wuxuu noqday in laydin soo celiyo sidee laydiin soo celiyey markii aan nidhi dee annaga waxaana lagu haysto de hana loo sheegay imkumaan soo galnay oo dee aan intaa soomaalida 6 bilood inbay ku jirtay 6deedii biloodna continued detention waa kuwan waraaqadihii waan hayaa continued detentionkii kolbana lagu biirinaya 3 bilood sii xidhnaada 3 bilood sii xidhnaada muddo intee lag baa marka la isku wada daro gobolladii aad ku xidhnaydeen oo dhan aa xidhnaydeen waxay noqonaysaa sanad iyo 8 bilood sanad iyo 8 bilood oo dhowr xabsi oo kala duwan laydin mariyay dhowr xabsi oo kala duwan la mariyay marka dawladda Soomaaliya ogolaatay baad leedahay adigu in kooxdiina la soo celiyo imise qof baa marka laydinku soo wada celiyay waxaan lahayn 29 qof laba Kenyaati bay haayeen oo I think iyaga codsaday oo dan inaga waa inaga gaar 9 kale kala Soomaali baan ahay laakiin asadow 9 kiina sidaan ka war hayo waxay isugu jirteen dad sidaadoo kala ahaa oo sidaad sheegtay sharcigu loo diiday oo dadasa loo soo celinayay laakiin waxa idin weelinayay qaar iyagu sharciye ku lahaa Mareykan ama sharciye aan ku lahayn rasmi oo buuxa oo dadna dambiye galay Soomaa way ku jireen qaar sharci ku lahaa oo lagala noqday intii dambiye galay qaar dagaal galay oo dambiye galay oo iyaguna lagana noqday intuu way nagu jireen xagga la idinku soo celiyay markaa waxaana lagu aflaata saacadood oo soo socotay meesha la yiraahdo Senegal bay shidaal ka soo qaadatay waxayna keentay markaa waan ka tiinadaysnay ka tiinad 9 kiinuba 29 qof waan ka tiinadaysnay kowdee ka tiinadu waxa labada qamcood tu caloosh soo marsay labada iyo labada lagood baa waxa wararka si xoog ugu jiray nin kooxdiina kamid ahaa oo ku dhintay qaraxii bishan horaanteedii ka dhacay magaalada Muqdisho ninka ma isku meel baa ku xidhnaydeen Axmed Saalax aad baan saaxiib u ahay waana ninkii aan ku sheegay kula wax weeyaan waa ninkii imaamkayga ahaa noo yeedami jiray waxaad ii sheegtay sidoo kale in dadkii isku mar leedii soo wada celiyay qaar fara badan oo kamid inay dib u tahriibeen oo South Africa ay qabteen way jiraan oo inta badan way wada tageen ba South Africa jooga aan ninka ku dhintay meesha ahayn Axmed Saalax ahayn Axmed Saalax markaad isku wada darto asadow kharash intee lag baa ku baxay safaradaada faraha badnaa iyo tahriibta taxana ahay waan qiimeyn karaa aduu ilaa 30 gaar saacadeed ilaa $30,000 macal maxay jeelka lagu dhex cunay 3 meelaha oo noocaysa imika magaalada Hargeysa aad ku sugan tahay ma joogaysaa mise dib aad u tahriibaysaa niyo saanu badinayaan oo naskaytaan jecel now because aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay